ilaahay idinkiis jalla jalaaluhu caduma sultaanu qodobadan haddaad raacdid aayaadkana aad akhrisatid ilaahay idinkiis waxay kaa caawinayaan arrimahan inaad heshid hurdo kugu filan oo waqti hore aad seexatid insha allah. salaada subaxna si fiican baad u toosaysaa oo u tukanaysaa. qisadani waa qiso cajiib ah. wiil iyo aabihiis ayay dhex martay. waxaa la sheegaa mid ka mid a culammada muslimiinta wiilkiisa wuxuu ku boorin jiray oo kula dardaarmi jiray inuu qur-aanka akhriyo barto, laga soo bilaabaa xitaa yaraantiisiba. qur-aanku bari jiray, qur-aankii buu xafiday si fiican. maalin maalmaha ka mid ah sheikhaasi wiilkiisa ayuu u yeedhay, markaasu wuxuu ku yidhi kaala wiilkaygiyow. wiilkii baa u imaaday, wuxuu yidhi waxaan kuu sheegayaa arrin iyo sir ku jirta suuratu alkahfi. waa maxay ayuu yidhi aabe. waa aayaad buu yidhi haddaad akhrisatid si fiican ayaad u toosaysaa oo salaada subaxa ugu toosaysaa, habeenkiina waqti hore ayaad seexanaysaa. laakiin shardi waxa ah buu yidhi waa inaa indhaha isku dhajisid markaa aayaadkaan akhrinaysid jiifsiga kadib. wiilka arrintiibuu la yaaba. hadalka aabihiis ayaa la noqday wax ku cusub. sidaasoy tahayna wax lala yaaba ma ahan, waayo qur-aanku aad iyo aad ayuu dhinac kasta caafimaad ugu yahay. wiilka arrintii buu sameeyey, aabihiis uu amray, dardaarankiisii buu qaatay. sidii buu in badan isku dayay oo sameeyey. markii habeenkii la gaaro waqtigii hurdadana uu soo dhowaado, wiilku wuxuu akhrin jiray aayadihii loo tilmaamay ee suuratu alkahfi ku jira. sidaasoy tahayna ilaahay waa waafajiyey oo aadaanka hore salaada subax ayuu soo toosi jiray. kadibna wuxuu ogaaday wax wanaagsan inuu aabihiis baray. wuxuu yidhi aabbahayow ilaahay ha ka abaalmariyo nimcadaas adi bartay. aayaadku waxa weeye kuwa ugu dambeeya suuratu lkahfi ee ilaahay yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati kaanat lahum jannaatu lfirdowsi nuzula. kuwa iimaanka leh camalka wanaagsan sameeyey waxaa u sugnaaday oo xaq u leeyihiin oo ay geli doonaan jannaatulfirdows. halkaasay geli doonaana degi doonaan khaalidiina fiiha, wayna ku waarayaan oo waa nagaanayaan weligood. laa yabquuna canhaa xiwala, laga wareejin mayo. ayaguna arrintaa maba dalbayaanba, waayo waa nibco weyn. qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimidlihi madada. baddu hadday ahaan lahayd mid tirisa kelimaadka ilaahay ama qorta qalimaan inta loo bedelo, baddu ayadaa dhammaan lahayd kelimaadka ilaahay intaysa dhammaan ka hor. haddii xataa badda lasii siyaadiyo kelimaadka ilaahay ma koobi karto. macnaha waxaa lagu tusayaa siday deeqda ilaahay iyo kelimaadkiisu u ballaaran yihiin, cidna aysa koobi karin. qul innamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada. nebigo waxaad ku tiraahdaa anugu bashar bili-aadan aho iyo aabba dhaleen ayaan ahay. ilaahay laakiin wuxuu ii waxyooday waxyi inuu rabbigiin macbuudka xaqa uu yahay. ee qofka aakhiro rajaynaya inuu ilaahay la kulmo camal wanaagsan adduunka ku sameeyo, cibaadada ilaahay inuusan cidna la wadaajin. aayadaha ugu dambeeya suuratu alkahfi weeye aayadaha oo aabbahaas ama sheekhaasi wiilkiisa baray, ilaahayna ku anfacay nana tijaabiyey. akhriso aayadahan hurdo waad helaysaa insha allah. ilaahay agtiisana thawaab ka rajee. sidaa la wada soconno walaalayaal, hurdadu waa nimco ilaahay ee addoommada ilaahay ugu nimceeyey. daalkii maanta iyo shaqadii aad qabanaysay ayaad ka soo kabanaysaa, waad ku nasanaysaa, jidhkaadii ayaa sidii dabiiciga ku noqonaya. aayaadka ilaahay bayna ka mid tahay hurdadu. ilaahayna wuxuu yidhi wamin aayaatihi manaamukum billeyli waannahaar waibtiqaa'ukum min fadlih ina fii dalika la aayaatin liqowmi yasmacuun. aayaadka ilaahay calaamaadka weynida ilaahay tusaya waxaa ka mid ah habeenkii iyo maalintii hurdadaad seexanaysaan iyo shaqadaad shaqaysanaysaa. dadka wax maqlaya arrintaa fahmaya ayuu rabbi yidhi. qofkaana awoodin habeenkii inuu hurdo helo, ogow arrintaasi waa dhibaato shayaatiine. laakiin aayaadkan iyo qawaanintaan uga adkow. markaad joodarigaada ama sariirtaada ama ilaahay wuxuu ku siiye aad awoodeed ku seexanaysa dul tagtid ee sidaa dhinac iskugu tuurtay, si degan waxaad u tiraahdaa allahu akbar. si raacsiyo waxaad tiraahdaa allahu akbar adoo indhaha isku sii qabanaya. insha allah waad seexan doontaa, shaydaanna waa carari doonaa. markaad sidaad tiraadid kusii dar laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiit wa huwa calaa kulli shayin qadiir. dadka qaarkoodna waxay sameeyaan iphonetay dhagaha gashadaan inay qur-aanka daartaan oo sidaa ay ku seexdaan. ayaduna dhib ma lahan haddaad aayaadkaasi ama suuratulkahfi dhammaan aad dhagaha gashatid adoo akhrisanaya. ilaahay idinkiis cadowga shaydaanka waa kaa cararaya, waana seexan doontaa. qofkii haya arrin kale oo uu tijaabiyey oo hurdada si fiican ugu raaxaysan u helayo, shaydaankuna uga cararayo, yuusan nagala bakaynin, hanala wadaago commentiga kusoo qor. siina faafiya kelmadan, lacala laga yaaba inaad gaarsiisid qof hurdadu ay ku yaraatay oo shaydaanku waswaasinayo dhibaataynayo. si aad u xoraysid qofkaas ajirna aad u kasbatid, faafi oo sheergaree, laygtana sii kuna soo biir channelkeena si aad noo dhiirigelisid. aad iyo aad baan kaga mahad celinaynaa taageeradeenna aan kala joogsiga lahayn. faafiya, dira, abaalmarkuna waa ilaahay agtiis. baaraka allahu fiikum.
haddaad ka mid tahay dadka si fiican noola socda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay la jirkaada. haddii aad tahay markii ugu horraysay inaadna dhegaysanaysid oo na daawanaysidna ha hilmaamin inaad channelka ku soo biirtid oo sabskrayb tiraahdid si aad u heshid wixii cusub wakhtiga uu soo dhaco kuwii horena aad oola socotid.